bismillaahi raxmaan raxiim. kulanti wanaagsan, kusoo dhowaada barnaamijkii la magac baxay soo celinta jacaylka. barnaamijka soo celinta jacaylka waa barnaamij aan ku soo qaadanno qodobo muhiim ah oo aan u aragno in ay faa'iido u leeyihiin qoysaska. casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay calaamadaha lagu garto in qoyska uu burbur ku soo socdo. sidaad wada ogtihiin, wax waliba oo dhici raba inta aysan dhicin ka hor waxay leeyihiin calaamado lagu garto. tusaale ahaan, qofka markuu jiran yahay in jirada hayse la ogaado waxaa lagu fahmi karaa calaamadaheeda. abaar markii ay dhici rabto waxaa lagu ogaadaa calaamado gooni ah oo ay ka mid tahay in roob la waayo kale. colaadda markii ay soo socoto waxaa lagu ogaadaa calaamado. guriga dadka ay degan yihiin inuu dumi rabo waxaa lagu ogaadaa calaamado sida mataqaanaa in uu dildilaacsamo iyo wixii la mid ah. maanta casharkeena oo ku saabsan calaamadaha lagu garto in qoyska uu burburi rabo. qoyska dadka badanaa waxay dhahaan qoyskan wuu dhammaaday, calafkii ayaa meeshaas ku ekaay. laakiin inta uu burburin ka hor waxa ay soo maraan ama ay arkaan ninka iyo naagta isqaba calaamado oo haddii ay calaamadahaas ka taxadaraan oo ka hor mataqaanaa ay dadaal sameeyaan, laga yaabo in ay qoyskooda burburin. saas daraaddeed calaamadahan dadka markii ay arkaan way fududeystaan, ayaana waxay sababtaa ugu dambeyntii in qoyska uu burburo. marka cashirkeena waxaan ugu hadlaynaa calaamadaha lagu garto in qoyska uu burbur oo ku soo socdo. guurka dadka badankiis waxa ay u maleeyaan nolol oo damaanad leh oo weligeed jiraysa, iyadoo aynan taxadar badan sameynin oo aynan ka digtoonaanin calaamadaha ay isku arkayaan markay isguursadaan kabacdi, taas oo sababaysa in ninka iyo naagta ay isfuraan. calaamadaha lagu garto in qoyska uu burburi rabo ama meeshaas uu ka soo socdo furiin waa ay farabadan yihiin, waxaana aan ku soo koobay ilaa 10 calaamad oo badanaa markasta ay dadku ay arkaan balse ay fududeystaan. saas daraaddeed calaamadahan waxaa la rabaa markii ay mataqaanaa dhegeystayaasha ay arkaan mid ka mid ah ama dhammaantood in ay taxadar badan ay sameeyaan oo si dhaqso ah ay mataqaanaa daawadeedii u raadiyaan. calaamadahan waxaan ku soo koobaynaa ilaa 10 oo aan u aragnay in ay muhiim ay u tahay si uunan u burburin qoyska. calaamada koowaad oo ay isku arkayaan ninka iyo naagta markii isqaba waaye, markii guriga ay joogaan oo sababi karta in uu qoyskooda burburo, waxaa kow ka ah aamusnaanta. sida oo la wada ogyahay oo normaalka, nin kasta iyo naag kasta markii intayna isguursanin ka hor waxa ay soo maraan nolol oo ay isbaranayaan. noloshaas ay xiriir ayaa dhex marayo. xiriirka inta uu dhex marayo waxaa dhex mara wada sheekaysi, waxyaalo badan ay ka wada hadlaan oo noloshooda ku saabsan iyo maxaa la lahaa mustaqbalkooda intaba. haddaba guriga ninkay naagta isqaba haddii ay isku arkaan ayagoo aanan wada sheekaysanaynin oo hadal dhan uu dhex maraynin, waxaa ay ka mid tahay calaamadaha lagu garto in gurigooda uu burburi rabo. calaamada labaad oo lagu fahmo in uu mataqaanaa qoyska uu burburi rabo waxaa ka mid ah ma jiro wax ninka iyo naagta ay isla danaynayaan oo si wada jir ah ay u sameynayaan. tusaale ahaan,
ninka iyo naagta oo isqaba inta aan is aroosin ka hor waxa ay isla samayn jireen waxyaalo ka wada dhaxeeya oo labadoodaba yacni ay siinayeen ahmiyad gooni ah oo si wada jir ay u sameynayeen. waxaa ka mid ah in ay isla baxaan oo mataqaanaa meel ay isla aadaan, meel beer oo kale ama jardiino isla fadhiistaan, in mataqaanaa ay isla aadaan maxaa la dhahaa maqaayadoo kale, inay isla aadaan qaxwada, in mataqaanaa shaneemo oo kale isla aadaan iyo waxay la mid ah. markay isguursadaan kabacdi haddii ay isku arkaan ninka iyo naagta oo aanan isla sameyneynin wax labadooda isla danaynayaan oo yacni sidii markii intaynan isguursanin ka hor ay meesha ka baxdo, waxaa laga yaabaa qoyskaasi inuu burburo. saas daraaddeed waxaa habboon in mataqaanaa laga taxadaro calaamadaasi haddii la isku arko. calaamadda saddexaad oo lagu fahmi karo in qoyska uu burbur ku soo socdo waxaa ka mid a mar kasto yacni way isnaqdinayaan. tusaale ahaan noloshu yacni way kala qaybsan tahay. qofka naagta waxay leedahay shaqooyin oo mataqaanaa u gooni ah oo guriga ku saabsan, ninkana wuxuu leeyahay shaqooyin kale oo banaanka ku saabsan. haddii ay dhacdo in ninka shaqadii naagta uu ku eedeynayo, tusaale ahaan raashinay soo karisay, raashinkii inuu wax ka sheego, dhadhanka inuu wax ka sheego, waqtigii raashinkii yacni oo la cunayo hadduu wax ka sheego iyo wixii la mid ah, ama naagtu ay wax ka sheegto ninka shaqadiisoo kale iyo meelaha yacni uu aadayo, oo qofba qofka kale uu yacni wixii oo caadiga u qabanayo uu noqoto wax uu ku naqdiyo, waxaa meeshaas ka soo dhow in mataqaanaa qoyskaas uu burburo. saas daraaddeed calaamadaas oo saddexaad oo ah in qofba qofka kale uu naqdiyo, haddii la isku arko waxaa suuragala qoyskaas inuu burburo. waxaana habboon in siduu dhaqsiyaha badan ay ugu taxadiraan ninka iyo naagta isqaba. calaamadda afaraad oo yacni laga yaabo inay sababto burburka qoyska waxa waaye wax kasta oo qofka sameynayo kan kale wuxuu noqonaa qofka ugu dambeeya uu ogaanayo. tusaale ahaan ninka markii yacni matalan wax kusoo kordhaan noloshiisa, amba shaqadiisa la dalacsiiyo, amba uu rabo in mataqaanaa uu meel aado, safar aado, amba waxyaalo cusub oo noloshiisa ka mid ah, kow marka hore wuxuu u sheegayaa asxaabtiisa iyo dadka mataqaanaa qoyskiisa kale, amba walaalihiis, amba yacni waalidkiisa oo kale. naagtana waxay noqonaysaa inay ogaato marka ugu dambeyso oo wixii ay fuli rabaan, yacni shaqadii markuu helo kabacdi ay ogaanaysaa, amba safarkiisa markii saacado ay ka dhiman yihiin oo kale ayay ogaanaysaa. marka amba sidaasoo kale naagta howlo ayay samaysanaysaa, amba meel inay aadi rabtaa, amba aroos, amba suuqa inay wax ka soo gado. ninka wuxuu noqonayaa qofka ugu dambeeya u ogaado. marka hore waxay u sheegaysaa asxaabteeda iyo mataqaanaa dadka qoyskeeda ah, ninkana wuxuu noqonayaa qofka ugu dambeeya. marka haddii calaamadaas ay isku arkaan ninkay naagta isqaba oo qofba qofka kale uu noqonayo qofka ugu dambeeya oo yacni ogaada, waxa ay ka mid tahay calaamadaha sababi kara in gurigaas uu burburo. saas daraaddeed waxaa habboon in ay ka taxadiraan ninka iyo naagta isqaba. calaamadda shanaad oo yacni lagu garto in qoyska uu burburi rabo waxaa ka mid ah qofka marka uu soo xasuusanayo noloshooda bilowgeeda ay ku soo dhacdo amba uu ka fikirayo, yacni wuxuu u soo xasuusanayaa si oo mataqaanaa yacni oo xanuun badan oo shalayto ay ku jirto oo aanan farxad lahayn. tusaale ahaan markii maalinkii ugu horeysay oo ninkii naagta is arkeen oo kale, waxaa laga yaabaa ninkana inuu aad ugu faraxsanaay, naagtana sidaasoo kale aad ugu faraxsaneed. laakiin markay isguursadeen kabacdi oo haddii ay noqoto maxaa la dhahaa maalinkaas ay isbaranayeen maskaxdooda markay kusoo dhacdo, amba albumka sawirada ay fiirsanayeen, sawiradii oo waqtiga hore
oo qofba qofka kale yacni uu u dareemo si oo murugo leh oo shalayto ah oo yacni farxaddii ka baxdo meesha, waxaa soo dhow burburka qoyska. saas daraaddeed waxaa habboon in ay ka taxadaraan ninka iyo naagta haddii ay isku arkaan calaamadaas, oo waqtiyadii hore oo yacni wanaagsanaay oo isbarashadooda waxaa loo baahan yahay in ay noqoto mar kasta ilaa yacni noloshooda oo dhan waxa ugu farxadda badan, oo si yacni kalgacayl iyo farxad zaa'id ah inay u dareemaan. marka calaamadaas haddii la isku arko waxay ka mid tahay calaamadaha sababi kara burburka qoyska. calaamadda lixaad waxa waaye in uuna qofka uu yacni siinin ahmiyad gooni ah qofka kale labiskiisa. inta ninkii naagta isguursanin ka hor waxaa yacni dhacda badanaa marka ninka yacni uu aaday naagta si ula soo sheekaysto inuu soo labisanayay labis qurux badan, naagtana ay ku farxaysa labiskiisa oo yacni ay ka bixinaysay xitaa mataqaanaa hadallo ay dhehaysa aada ugu qurux badan tahay. sidaasoo kalena naagta ninka intayna isguursanin ka hor ay soo labisi jirtay yacni labisyo qurux badan oo ninkana ku dhihi jiray labiskan aada ugu qurux badan tahay. marka markay isguursadaan kabacdi haddii ay dhacdo in ninka uuna danaynaynin labiska naagta, uuna dhehaynin waa ku qurux badan tahay, naagtana sidaasoo kale yacni ayna danaynaynin oo qofba yani wuxuu rabo oo iska gashanayo, yani dabcan qof kasta dhar wanaagsan uu gashanaya oo asaga la qurux badan, laakiin radi ficliga ka imaanaya dhanka ninka ama naagta uuna u dareensiinaynin labiska qofka ugu jiro inuu yahay labis mataqaanaa oo ku qurux badan sidii xilligii hore oo kale, waxaa meesha ka soo socota burburka qoyska. saas daraaddeed calaamadaas haddii laysku arko waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro oo mataqaanaa si dhaqsi ah loo xaliyo. calaamadda toddobaad oo lagu fahmi karo in qoyska uu burbur ku soo socdo waxaa ka mid ah in guriga markii la isla joogo yacni uu qofba qofka kale joogitaanka guriga uu dhibsado, oo mataqaanaa ninka markuu guriga joogo laga yaabo in wax xiriir oo hadal ah dhan uu la sameynin naagtiisa, oo tv iska fiirsanayo, naagtana joornaal ay akhrisanayso ama music ay dhegeysanayso, ama naagta tv fiirsanayso ninka mataqaanaa asagana uu dhegeysanayo wax kale ama joornaal akhrisanayo. hadalka ka dhexeeyana uu noqdo keliya su-aal iyo jawaab. marka yacni ma jiro wax oo xiriir ah oo dhexmaray, gurigii waa la isla joogaa laakiin qofba qofka kale dhib ayuu ku qabaa, oo yacni intaas guriga uu joogayo yacni waxyaalo kaloo isku mashquulinaya. marka calaamadaas haddii laysku arko oo ninkana in naagta uu dhibsado guriga markii la joogto, naagtana ay dhibsato oo waxyaalo kale ay ku kala mashquulaan, ayuu guriga isla jooga iyagoo heli kara inay wada sheekaystaan, inay tv-ga isla fiirsadaan, oo qofba howl ku mashquulsan yahay, waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto in qoyskaas uu burbur uu usoo socdo. waxaa habboon marka in ay ka taxadaraan ninka iyo naagta isqaba si gurigooda uu u burburin. calaamadda sideedaad oo ka mid ah calaamadaha lagu garto in qoyskaas uu burbur ku soo socdo waxaa ka mid ah marka yacni ay doodayaan, doodooda wuxuu ku salaysan yahay hal mowduuc, qaabkay u doodayaanne waa hal qaab. tusaale ahaan dhowr bil ka hor ayaa mowduuc laga dooday, mowduuc ka gedisan ayaa maanta laga doodayaa, qaabka looga doodayo iyo qaabka loo hadlayo waa isku qaab, waxaana xiriir loola sameynayaa kii hore. hadda ka hor saasaa dhacday, hadda ka hor saasaa samaysa, hadda ka hor yacni markasta mowduuca maanta hadduu dhaco waxaa laga yaabaa inayna isku nooc ahayn waxa hadda maanta laisku khilaafsan yahay iyo wixii shalay laisku khilaafsanayo. markasta waxaa xiriir lagu xirayaa kii hore. marka haddii oo dooda noocaas oo kale guriga ay ka bilaabato, waa inay ogaadaan ninka iyo naagta in gurigooda uu burbur kusoo socdo, ayna mataqaanaa calaamadaas haddii isku arkaan ay ka taxadaraan oo mataqaanaa si wanaagsan ay u xaliyaan.
calaamada oo sagaalaad oo kamid ah calaamadaha lagu garto in qoyska burbur uu kusoo socdo waxaa kamid ah kalsoonida labada qof ka dhaxaysa oo meesha ka baxda. kalsoonidaas ha noqoto mid guud oo mataqaanaa yacni naagtana ay u fahanto ninkeeda inuu daryeelayo, inuu nin fiican yahay, in mataqaanaa ilaa mustaqbal ay la joogayso. ninkana uu u fahmo naagtiisa in yacni naagtiisa uu jecel yahay ay tahay, oo daryeelayso, ay ka warqabayso, ama meesha ka baxayso. yacni qofba qof kale wuxuu arkayaa qof oo aan danaynaynin, kalsooni ma ku qabaayo, wax kastoo u sheego ma aaminsano. iyo kalsoonidii kale oo gaar ahaaneed oo qofba qofka kale uu ka shakiyo, oo haddii mataqaanaa naagta ay meel aado ninka uu u maleeyo in mataqaanaa waxyaalo oo khalada inay sameynayso kale. sidaasoo kale ninkan haddii meel uu aado naagta yacni ay ka shakiso oo kalsooni darro ay meesha ay timaado. marka haddii ninkii naagta midkood ama labadooda ay isku arkaan in oo yacni kalsooni noocay rabta ahaato, kalsoonida gaar ahaaneed oo sharafta qofka ku saabsan iyo kalsoonida guud ahaaneed oo qoyskaas ku saabsan, oo ay iska waayaan, waxaa meesha kasoo socdo burbur qoys. saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in ninka iyo naagta ay ka taxadaraan oo ay ka wada hadlaan arrintaasna ay xaliyaan sidii ay kusoo celin lahaayeen kalsoonidii labadooda ka dhexaysa. calaamada tobnaad oo lagu garto in mataqaanaa qoyskaas oo burburi rabo waxaa ka mid ah in la waayo ninka iyo naagta wax oo xiriir oo mataqaanaa yacni galmo inuu dhex maro. isku soo dhawaanshaha ninka iyo naagta ama in mataqaanaa xiriir oo yacni galmo ay sameeyaan waa udub dhaxaadka qoyska. waxay isku soo dhaweysaa jirkooda, waxay isku soo dhaweysaa qalbiyadooda, yacni waxa ay sababtaa naxariis, waxa ay ilowsiisaa waxyaalo badan ama khaladaad hore u dhacay. marka haddii ay dhacdo ninkiina in naagtiisii oo rabitaan oo mataqaanaa yacni oo galmo uuna u rabin naagtiisa, ama naagtiina sidaasoo kale rabitaan galmo ee ninkeeda ka rabin oona kusoo dhaceynin xitaa hal mar, haddii oo midkood midka kale u baahdane asagoo kan kala dhibsanaya la sameeyo galmadii, oo meeshii ay ka baxdo mataqaanaa in la isdhunkado, in mataqaanaa yacni xabadka la isgeliyo, in mataqaanaa faraka ciyaar la sameeyo. waxyaalahaas oo dhan haddii ay yaraadaan ama meesha ay ka baxdo oo muddo aynan dhicin inuu xiriir galmo oo dhex maro ninka iyo naagta, waxaa soo dhow burburka qoyska. marka calaamadahan waxawaaye waa calaamado aan soo koobay oo aan u arkay in yacni badanaa ay ka dhacaan qoysaska dhexdooda ayagoo aanan dareensaneyn, ugu dambeyntiina qoyskii uu burburo, oona markaas dhahaan ninka iyo naagta calafkii ayaa meesha ku dhammaaday, ayagoo calaamadahan hore u soo arkay. marka calafka ma dhammaanin, calafka wax la dhahana ma jiraan, calaf wax la dhahana ma jiraan, laakiin wixii intii uu furiinka dhicin ka hor waxay soo maraan calaamadahan. marka ninka iyo naagta isqabo haddii ay isku arkaan calaamadahan, waxaa habboon inay ka wada hadlaan oo ay xaliyaan. amba haddii dad kale ay ku arkaan nin iyo naag isqabaan calaamadaha mid ka mid a, inay dhex galaan oo yacni ay uga dhigaan wax muhiim ah, oo in ay ka wada hadlaan ay ku baraarujiyaan. haddii inay ka wada hadlin qoyskooda oo markaas oo burburayo. marka intaas ayaa maanta kusoo koobaynaa casharkii aan uga hadlayna calaamadaha lagu garto in qoyska uu burburi rabo iyo qaabkii loogu hortagi lahay. waa anigoo maxamed deeq ah oo idin leh tan iyo casharka xiga, sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.